munaasabada ay soo qaban qaabiyeen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin hore xilal hore uga soo qabtay dawladda Soomaaliya waxaana munaasabadan lagu xuseeyay 1 Luulyo oo ah maalin ay xornimada ka qaadatay koonfurta Talyaaniga ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Gurey Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed dib u xusuusado maalka go'aanimada Soomaaliya dadweynahan baraarujino waxaan u talagalnay kumaad inaan nala xustaan maalintii calanka Soomaaliya saaray oo tabay midoobeen wada gobol waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo dawladdan ha noolaato ha israacdo soo dhawaada kulligood anka kale Saciid Jaamac Qorsheel oo hore u ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya oo ah hadda gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isna goobta ka hadlay hadda maanta hoteelka ma aragtaan calanka Soomaaliya oo dhab ah ranjigii la rabay ayaa laga taagay oo loo taagay munaasabada awada waxaan jecelahay guri kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo maartay ganacsi ah haddaan calankiiba ka muuqan waxayaan inaga shaki ina gelaya marka waa aragtaan calamadu way farabataan laakiin ka aabaha u ah oo rasmiga degmada samaysan karto gobolka samaysan kara maamul goboleedka samaysan kara laakiin kii guud oo calanka aha waa kan maalinimada maanta inuu taaganahay oo la rabaa qof walba inuu gaarigiisa u saaran yahay gurigiisa inuu yaalo inuu astaanta ugu dhigan tahay arinta way arinta marka maxaynu u baahanahay dad baa u soo dhintay xorriyadda dad baa maanta wax aynu ku naaloonayno dad baa dhiigoodii u hileeyay waa in hadda iyagana faatixada loo maraa oo la xusuustaa oo laga sheekeeya inteena joogta waa la rabaa inaga ugu sii dambeynaa laga yaabaa sida muuqata jiilka dambe qof laga yaaba haddii xoogaa la sii joogo inaan qofna ku sinaanayn inuu maxay ahay yiraaho waa joogay marka waa inaan dadku xor reebnaa oo bal waxa qofku raadsanayo shakhsiga halkiisa ha ahaato laakiin tan caamka ah oo calanka Soomaaliyeed yaa nina marti loogu noqon calanka Soomaaliyeed waa astaanteeni dawladdu waa astaanteeni wali waxba dadku isku khaldaan marka waxayaan sidii loo dhowri lahaa oo wax loo samaysan lahaa oo maxay ahayd markii la isku yimaadaba la yiraaho Soomaaliya ha noolaato intaas ay noogu filan oo aan rabnaa in dadkeena kala gaarsiino maanta halka waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa aad u jecelahay مسؤولينتي قرنك دور وسيل بين رجال الشوقة وأصحابتنا وسيل كدولها حديث رئيس الوزراء وزير عبد الله وحنا نجوا وزير كعجنك سائر الجديد في ذلك حرس الهبلة هي نجوا مسؤولين كلا فرق بدن أي الشوقة يومنا inta kadib waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay wasiir Cabdullaahi Xamed Maxamed oo ah wasiir dawladda xafiiska wasaaraha Soomaaliya ayaa isna ka hadlay munaasabada waxaan rabaa inaan u tahniideeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay maanta ku ciidaan si farxad leh maanta calan saar marka annaga waxaan sharaf noo ah inaan kala soo qayb galno odayaasha meesha isugu yimid inaan maanta la dabaaldegno calankii iyo midnimadii marka waxaan rajaynaynaa ilaahay raalli ka yahay in qof walba meel walba uu joogo inuu si farxad leh isugu hambaliyeeyo inay maalintii midnimadeena iyo maalintii calankeena tahay Soomaaliya asraacdo Soomaaliya hamidoodo dhanka kalena waxa iyaguna goobta ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale abwaaniin habeenkaas waxay habeenka ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo kala dhacay meel kasta ay joogto habeenka ay u bilaabatay waxaan shacbiga Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya inay maanta laga bilaabo habeenka xusuustaan qof waliba ee Soomaaliyeed inuu wax caloosha ku jira uu iloobo saan u badbaadino shanto isu heshaday waxna calanina wanaagsan ummadu waa oo isku mid ah oo isku diin gurguriyaha ardu shantaanu nahay qariyada iyo mas'uuliyaddu waa mataano haddii ay kala furmaan labaduba waa dhimanaya qariyada iyo mas'uuliyaddu waa mataano haddii ay kala furmaanna labaduba way dhintaan taas waa in la ogaado qariyadu عياركم إمام محمد عبد عثمان محمد فرديره ستار تي في مقالة مقدشو.